dadka reer banaadir ee ku nool caasimadda jamhuuriyadda dhammaan waxaan idin leeyahay maanta waxaad muujiseen taariikh cusub oo u baahan inay dadka Soomaaliyeed ee jamhuuriyadda ku nool ama dibaddeeda ku nool inay fahmaan dadka Muqdisho meesha ay taagan yihiin waxa la yiraahdo kifaaya ama enough is enough ayay taagan yihiin sida ra'iisul wasaare ku-xigeenku hadda u sheegay way ka daaleen xasuuq iyo dil iyo maxaan ku yiraahdaa qaab darro oo dhan marka waxay joogaan inay yiraahdaan bas waan ugu filan tahay intaas raalli ahaada niman raalli ahaanaya ma aha laakiin Soomaalida qaar waxay ku mahmaadaa one weyn ilaa la gowraco indhihiisa cirka ma arkaan nimankan shabaaba ilaa aad iska dhicido inaad dad tahay kuma haystaane badaaca yar oo ayagu ay leeyihiin inaad tahay ayay ku haystaan badaaca yar oo ay ayagu leeyihiin inaad tahay ayay ku haystaan marka dadka ayaa soo gaaray meel ay yiraahdaan waxaan rabaa wadada aad ku taagan tihiin iyo dadaalka aad muujiseen intaba waa dadaal sax ah ku taagnaada wadadaas nimankaasi in la iska dhiciyo oo nadaafa la yiraa moogiye wax kala ma laha magaalada Muqdisho maxaa u gaara marka oo ay kaga duwan tahay dalka intiisa kale waxay kaga duwan tahay dalka intiisa kale meel baadiye ah duur meel jaq oo la galo meel hulal oo lagu dhunto tuulooyin fogfog oo la aado waxbay leedahay magaalada Muqdisho waa magaaladaas 3 milyan ee jarjarka ay ku nool yihiin oo daris wada ah oo 10 mitir iyo 2 mitir iyo 5 mitir iyo darbi is saaran ay dadku ku nool yihiin oo leh maqaayado hoteelo maxaan ku raayay suuqyo waaweyn oo ay dadku isugu yimaadaan baadiye nin joogaaye xabad soo wiiftaa ku dhacayso ama nin la soo qabtay oo ma qof la soo qabtay oo si toos ah loo dilo laakiin Muqdisho dadka hal uma layn karno inta madaxa uga dhufo kaas madaxa ka jibi xagga mid kale ku dil war dadkii waa soo taageysayaalna waa anfici weyday waa ku qanci waayeen waa niman ileen dhiigii dadka ee daadanayay ku bahaloobay waaye waa bahalo dhiigii dadka ee daadanaya markastoo ay dhiig badan daadiyaan ayay farxad iyo guul ayay la tahay sidaas daraadeed waa inay baabuur waaweyn inta soo rakibaan ay dadka boqol iyo boqolaal u laayaan waaye markaasay farxad iyo maxaan ku yiraahdaa murtadiinan xagga ka dhacnay iyo intaan ka dhacnay yaa ay leeyihiin dad abka ab iyo isir ahaanba muslimiin ahaa oo diinta islaamka markii ay timiday intay cusbeedo caalamka meelo badan oo kamidba aanay gaarin soo gaartay oo qaatay oo aan seef lagu islaamin iyo xoog iyo qasab waaya dadkan marka nimankaasi waad aragteen dadka Muqdisho waad aragteen waana joogteen dib u fiiriya mar walba dadka meesha ugu xanuunka badan oo ay ka murugoodaan oo ay ka walwalaan oo maxaan ku yiraahdaa tiiraanyadooda iyo xanuunkeedu ay muddo dheer ay dadka haynayso waa meesha ay mar walba ay ka weeraraan oo ay ka dilaan oo ay ka abaaraan hooyooyinka xagee u xanuun badan ilmaha iskuulka aadan laay maxaan ku yiraahdaa caruurta maxaa u xanuun badan hooyadii saaka suuqa aaday ama maxuu ahay tabakaayada meel hebel ku gadanaysay ama dukaanka iyo baqaarka meel hebel ku leeyahay dil يعني dadka qoro walba meesha wadaadada inta ugu xanuun badan halka dhibka badan saaj ka soo baxay ee fahamsan aan dilno madaxda iyo dawladda ka ugu xanuun badan kii soo socdo oo dawladda horboodayo oo waxayna dadka ka ugu xun kii awaamirtooda diida waa dadka meeshaasay ka abaaraan markaasay birina inta ku faanaan waliba ayagoo faraxsan ayay waxay yiraahdaan saasay ahayd iyo saasay ahayd nimankii hooyooyinkii iyo aabbayaashii iyo dhalinyaradii ciyaal iskuulka ahaa ee marayay wasaaradda tacliinta iyo soobo hortiisa marayay maalintii hadda ugu dambeysay ee halka qaraxa ugu geystay maalintii dambana yiri meesha Almaaniyada lagu faafinayay Almaaniyada laga shaqeynay war islaanta hilibka meesha ku gadaysa Almaaniyada ka shaqeysaa
wadaadka gaarigacanka riixayay iyo mooska iyo qudaarta gadayay macalmaaniyadu ka shaqeeyaa halka baska saarnaa ee musaafirka ah ee meesha baskiisu istaagay ama marayaba uu socday macalmaaniyadu ka shaqeeyaa halka meesha masaajidaan u dheerayna ka soo baxay inta ku soo dukaday meeshaan baska raacis lahaa dadka hal inay u dilaan kuma qancaan ma farxiso boqolaal iyo kumanaan inay u dilaanay rabaan waana u soo dileen qaraxiyadii ugu horeeyay ee magaaladan ka dhaca shaamow allah u naxariistay professoradii dhaqaatiirtii dadkii maxaan ku rahay indheer garadka ahaa ee hoteelka shaamow lagu weeraray ee lagu dilay oo culimo ahay culimo caalimiin ah oo lagu yaqaan inay culimo yihiin oo diinta lagu yaqaan meesha ku dilay bal eeg 14 February wixii ka 14 October wixii ka dhacay meeshaas isla meesha mar labaad hadda 29 bishii October ay ku waxeeyeen wixii ka dhacay yaa mar kale haddana ay u celiyeen meeqo 600 oo qof oo dad lagu qiyaasay oo aan la garanaynin sababta ay ku mutaysteen ayaa meesha ku dhimatay waxaan leeyahay dadka reer banaadir caasimadda muqdisho dadka ku noolow khawaarijta marada ka hurgufta iska bixiya adikaydu ku dhac guntigiinay ku jiraan khawaarijtu guryihiinay joogaan darisay idin leeyihiin guryaha adika leedihiin inaad ka ijaarataan baabuurta ay leeyihiin ayaa agaarkiina marta xaafadiinay ag joogtaa waxaan rabaa maanta inaan ku ballanno khawaarijta inaan iska bixinno oo aan waa dhilqa noogu jira marada aan ka hurgufanno oo aan iska bixinno intaas ma isla qaadanay maanta wixii ka dambeeyo waa dadaal waxaad arki doontaan miina jidka la dhigay meel dad lagu gaaday waxaas dadka waxaa u sheegaa magaalada muqdisho joogta qaraxyada magaalada muqdisho ka dhaca 10 jibbaarkooda la fashiliyay oo la celiyay oo ciidamada amnigu ay fashiliyeen oo ay celiyeen halkii baxsaday ilma dhowrtaa la yiri waayo waxaad arkaysaan ayagana maalinta ka dambaysa way sii yaraan doonaan laakiin waad arki doontaan marar kale oo soo socdana waa noolnahay waa joognahay ka wadaane maxaa waaye ma aha tabar iyo awood iyo taageysasho ma aha sooma xoogaysan karaan ciidamada qalabka sida iyo shacabkoo iskaashanayo kama soo adkaa karaan kamana soo badbaadi karaan waxaan marar badan meelo badan ka sheegay kalluunka ama malayga haddii meesha uu ku jiro ku dhex dabaalanayo biyuhu ay ka dhammaadaan miyuu sii noolaan karaa shabaab waa malay ama kalluun biyihii ka dhammaadeen oo biyihii ka gureen kalluun biyaha ay ku dhex dabaashaan ay ku dhex dhuntaan shacabka Soomaaliyeed oo ahaa shacabkii Soomaaliyeedna waa diiday biyihii sidaas ayay kalluunkaasi uga gureen kalluun biyo ka gureen dhimashaa uu leeyahay shabaabna waa dhintay ogaada amaasantiin kalluunkaas biyaha ka gurayaanu idin guulguulin waa ka adkaateen waa iska dhiciseen waad fahamteen bas waa dabayaaqadiisii inta dhiman aan israacinno waxaan rabaayo kale oon dadka magaalada muqdisho si gaar ah ugu adkaynaya dad daris wanaagga iyo soo dhowaynta iyo maxaan ku rahaa qiimaynta walaalka ku fiican waaye guud ahaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolka Banaadir degan waxaan rabaa marka wanaagaasi ma marka qaarkood yaanu ka faa'iideysanin cadowgaas nacaska ah oo hadda aan sheegin ninka aadan aqoonin inaad tira adigu yaad ahayd ama aad haddaadan dhehen xataa aad soo sheegto aad tiraado warnimaan garanaynaa meeshaan jooga oo la weydiyo la yiraaho waa sidee adiga maxaad ahayd intaad naga soo booqatay la weydiyo
وحكو جبن مجران درس حمين معهن درس حمين معهن محل يراه قرواه مقعاس محل يراه قرواه ننكا أما قبضة أما قفك أن لقرانين قرواقو واسهنكي شبابك قرواقو وامدك بالرئيس خرحين دونا قرواقو وامدك محانكو يرادا ميراها كلابا aan feejignaan u lahaano oo indho dheer u lahaano garawaa ninka aan la garanayn gabadha aan la garanayn wiilka aan la garanayn odayga aan la garanayn hala weydiyo in la weydiiyaa ceeb maaha laakiin inaad inta ka xishooto qofkan Soomaaliga ah ee deriska noqday hadda soo degay maxaad u dhibaysaa intaad istiraa oo biri adiga ku dilo oo dad kale ehela uu dilo taasaa ka sii xun inaad weydiiso walaalow adiga xageed naga soo booqatay ama walaalay xageed naga soo booqatay adiga in la yiraahdo garawaaga aan iska ilaalino maanta wixii ka dambeeyo garawaa waxa qarax dhaca iyo waxa waxweeya nin sahama gabar sahama oo joogta ayaa keenta gabadhaas iyo lama yaqaano laakiin haddana dars waaya leeyahay wala dars cusub maaha iska ilaali garawaaga yaanaan ku kadsoomin garawaaga haddii aan la yiraahdo intaa kadib waxaa soo haray شباب ما تواتقي عبسيديسي وادا ماتي دادك الصوماليين لكن دادك اسكو مدبدا لغا يابا ولي انو سي عبسانيو وروح لغا عبسادا ميشا ما يالان وعيga culimadeena maanta waa maqlaysa diinta waxay ka dhaaday horena waa u sheegeen waa ku cilciliyeen waliba diintu waxa ay ka qabto nimankan diintu waa naga xadeen waa se ka soo ceshanay hadda abwaankii gabi abwaan sahal waad maqlayseen abwaankii kale abwaanada oo dhan dadka Soomaaliyeed maanta indhahoodu waa furan yihiin sidaas ay u eegayaan waana hoga tusaaleynayaan meel kasta iyo waxa ay ka yihiin iyo macnaha ay ka leeyihiin mujtamaca dhaxdiisa ay ka leeyihiin hoga tusaaleyntaas aan ku amal falno aan qaadan cabsidana aan iska deyno ha soo haray shabaab beesadeenay ku nool yihiin beledkeennay ku nool yihiin dadkeennay ku dhex nool yihiin waana inta aan sheegnay caqliga inay naga khaldaanay ku nool yihiin war caqligeennana aan ka hagaagsanno oo cibaadada suuban iyo alla ka cabsiga aan aadno iyo waxa ilaahay iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam ay ku yiraahdeen aayadaha quraanka iyo xadiista aan dhageysanno way sahlan tahay inaan fahamno nimankan markaa waa qodobka labaad beesada aan ka ilaashanno beesada aan ka ilaashanno war beesada aad cabsida u dhibada cudurdaarka kaliya ee dadku ay sheegaan waxa waaye nimanku waana dilayaan waa ka cabsanaynaa nimanku waana qarxinayaan nimanka ganacsigayga ay xirayaan yaa ku ballan qaaday beesadii aad dhiibtay qaraxa lagu soo sameeyay inaanu ku dilayn xageed heshiiska kula gashay war anigu beesadaana dhiibayaa laakiin dadkayga ehelkayga carruurtayda iskuulka aaday kayga ganacsiga aaday saakay islaan hataaba ma kula ballantay waxaan aad iyo aad u hubaa 100 qofood ee hadda noogaga dhimatay 23 Oktoobar Zoobe iyo muxuu tacliinta sare irideeda allow maxaa ku jiray dad shabaab cabsidiisa lacagtiisa u dhiibay ama kuwa ehelkooda ah ay u dhiibeen cabsi oo qaraxaas la qarxiyo lagu soo sameeyay lacagtii la dhiibay qaraxa carab maaha dhulka laga soo qaaday warshado lagu sameeyo oo anagu materialka qaraxa laga sameeyo soo saaro ma qabno waa la soo dhoofiyay haddii la soo dhoofiyayna dollaraa lagu keenay laaluusha laga soo dhiibay ilaa qof qaadaysa markii soo qaaday kii inta keenay laaluusha lagu siiyay ku kala xagga ka soo qaaday kii isku rarakibo isku xirxiray waa la siiyay warninkii bixiyay lacagtaasoo ama gabadhi bixisay ilaahay hortiisa maalintaad istaagto maxaad sheegi doontaa waa cabsanay macnaheedu waa maxay aniga hay dilina or dadka soo dil dadkaas kala dil aniga laakiin hay dilin waay war ma naf ku doorsoonta xagee ka furan tahay kuwa lacagaha dhiibaya mar kale waa waaninayna waana idin daba soconnaa cudurdaar ma laha shabaabaan lacag siiyay oo anagu idilayay laana damaanad ma ahayn inuuna asaga dilayn iyo inuu dadka dilayn nacasnimo waaye waa dabaalnimo waa diin yaraan
وإيمان يران ومحوها عقيدة إيو محاكو هذا توحيدك إيو الله قدرة إلهي oo aan lagu yiri maalinta dhimada saacadna kama soo hormaraysid saacadna ka dib dhicmaysid oo ilaahay ku yiri oo aamini weyday u dhigantaa macnaheeda dadka Soomaaliyeedo joojiya dawladdu mar dhow way soo bandhigi doontaa xisaabaad badan oo bangiyada ka furnaa oo shabaab lacagta loogu aruurinayo waa la xiray تلفون بدن أو لعبت موبايل كأو لسكو حول لوك لحول يوال لحري لعب ملايين أي حسابات كاس تلفون ده سكو حيران ما أنت عن إذا الله ضاي دولة دوي صوبان دي قدون تامر دولين وي سعوتا دقال كدقالا الشباب عن كل الجرناهي أفمأهن وفعل هي أذها هي شخصياتك أو سؤركعة شباب وحسي أوغال كسي إنه شباب العكسين يأك أو عذر دار داس عن شاقني بحين أيه عذر دار كلا ما أقبله كي كوكت سومي كسر مي بنجلة شركات كلا أوغال الآن محوى أديك أوه حينه ولوج الدقيا وأنا لو شيء سنسان كانوا ليهين ساني وحسبوا قد بيان إسكا إلالي يا لليه إسكا إلالي أوغال الآن وحي كل عددك واللوغة دقيا والشيقيا لغسو بودي مايو سيدا دادكين ايو استعمالين او سوقيدين ايو استعمالين او دكدهين ايو استعمالين او قريهين ايو استعمالين او كلا اي بنقيدين اي حوالدهين اي تليفوندين اي وحين انو استعمالين لكن وان دبسعنا واشيقينا عدي انتان اشيقنا مرلبات اي مرسدحات كوكت سونتا markaas waa la xisaabtan waay laakiin marka hore waa laga yaabaa mar in la marsiisto ogaan la'aan iyo faham la'aan inay wax ku dhacaan laakiin marka anagoo fahamsan aan fahamsiino waxaan ka rabno waxay tahay in aanay mar labaad ku kadsoomin kuna soo dhigi mayno mana xireyno mana xumaynayno wax u sheegiday leeyihiin waxbaan u sheegaynaa dadkanaga sidaas daraadeed ayaan idin leeyahay idinkuna codkiina iyo maxaan ku raacay aqligiina iyo cilaaqaadkiina intaba ku kaba in nimankaasi dagaalka lagu la jiraay xabada bas ma ahane kan aqeedada ah oo fikirka ah oo dadka loo sheegayna inaan qaadano culimada dhageysano waxa ay noo sheegayaan aan ku dhaqanno kan maaliyada iyo maamulka lacagta ah ee dadka khubarada ah ee adaa lacagta ka shaqeeyo ayaguna in taladooda iyo waanadooda la qaato ma yeelayno dadka Soomaaliyeed in sidaasi ay argagixiso khawaarij u gasho ma yeelayno waxa intaas dheeroon dadka Soomaaliyeed hadda ka hor u sheegay haddana ku celinaya kuna ballan qaadaya qofkii Soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalanay qof kaloon u ogolnahay inuu dilo ma jiro qofkii qof dilo shariicada la horgeynaa maalin dhaweeto nin Soomaaliyeed aabba meel jooga ganacsigiisa ag fadhiya ayaa askari dawladda ka tirsanay oo 5,000 oo shilin daraadeed u dilay xamar weyne waa la wada og yahay waa xiran yahay shariicada la horgeynaa wixii shariicadu ay ka qabtaan ka qabnaa qofkii qof dilana shariicadu waxay ka qabto waa garanaynaa maanta mid ciidanka ka tirsanaya la dilay sarkaal waliba sheeganayay oo baabuur inta soo kaxeeyay meel fadhiisiyay asugu soo fududeeyay ee la qarxiyay ee inta soo qof ay nooga dhimatay sarkaal ma aha dhakhtar ma aha askari nooma aha walax kale maxaa magac dawladeed sheeganaya nooma aha sheekh nooma aha midka ka shaqeynaya dadka Soomaaliyeed dhigooda inay daataan waxba isuma dihin qofka Soomaaliga ee bini aadamka ah ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyay noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayay naga mudan yihiin aniga markaan xafiiska imiday la dagaalanka khawaarijta maxaa waraay la tacaalida maxaa waay gaajada iyo abaarta dadka ay waxyeelaysay
iyo maxaan ku yidhahdaa dalkan meel walba looga dhegan yaho daynaan ku leenahay laleeyahay daynteedii in maxaan ku yidhahdaa la xalliyo saddexda muhiimadoodan qaadanay taasay ahayd saddexdubana meel farama dadkii aan har iyo habeen u istaagno aan albaab walba u garaacnay war yaanay dhimanin dadkaana hanala kaalmeeyo si aan u quudinno in qof inta soo baxo xabad isaga dhifto ama waa isdirin reer aan ayno xabad wiiftaa ku dhacda la yidhaahdo shabaab gadaashiis dagaal lama ogola qabiil la diriri karaa ma jiro jidgooyooyinka kuwa meelaha ku hayow intaan ka gaarin waa ku sii soconnaay waa intaan ka gaarin ayagana qaaticu tariiq sharciyada islaamku waxay ka tiri waa la garanayaa culimadeenna waa noo faahfaahiyeen waa noo sheegeen intaasoo janna waa ka sheegnay ma ogolin mid dadka safraya ee Soomaaliyeed jidka u taagan ma ogolin mid magac qabiil inta ku soo abaabula dadka isaga hor keenay ee dad badan oo Soomaaliyeed ku leedaan ma ogolin qofka Soomaaliga dhiigiisa ومانسدين dadka Soomaaliyeed dhiigooda waa sharaf uu leeyahay qiimo uu leeyahay ma ogolin sina in loo daadsho ninkii dawladdu kuma soo gaarto kuma aragta dhahayo waa laga daba imaanaya laga hari maayo qofka qof dila laga hari maayo ilaa la hor keeno sharciyada qaanuunka la hor keeno laga hari maayo waxaan leeyahay marka maanta waxaan ku ballanay dadka gobolka Banaadir caasimada deganow garawaa iska ilaaliya haddii gaabis oo dhinaca dawladda ka yimaado oo teleefanadii dawladda iyo ciidamada amniga ay bixiyaan la qaban waayo lagu amal fali waayo hala soo report gareeyo talaaba laga qaadaa qofkii hawshaas qaban waayo ama ciidamada qalabka sida qaybta doonaa ka ahaade ee ay khusayso talaaba cada laga qaadaya laakiin shacabka waxa marti looga yahay dadweynaha gobolka Banaadir ninka socda iyo wiilka socda iyo gabadha socotay aan la garanaynin adigu yaad ahayd in la yiraahdo la weydiyo waa sida kaliya ee nimankaani aan u xaqiijinayno malaayigi biyaha ka guray inay yihiin waa sida ku xaqiijin karnaa hadii la yiraahdo mar kale dhammaan waa idin mahad celinayaa waa idin bogaadinayaa waa idin amaanayaa doorka aad ka qaadateen dalka iyo dadku inay amaan helaan oo nabad iyo deganaanshiyo aan ku soo naaloono aad iyo aad u mahadsantiin maalmihii wacnaana waa soo socdaan waa soo dhow yihiin hadii la yiraahdo waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh